wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka Gabiley ka degmada Wajaale iyo ciidamada booliska gobolkaasi ayaa saaka ku waabaristay hawlgallo loogu sameeynayo magaalada Wajaale qorshe magaaleed ama master plan isla markaasina lagu banaynayo wadooyinka xidhmay ee magaaladaasi oo gabi ahaanba aan halkaasi hore uga jirin waxana saaka subaxii hore cagafyo la geliyay dhismayaasha xidhay jidadka ku yaala magaaladaasi kuwaasi oo la banaynayo gabi ahaanba hawlgalkani oo sidoo kale ay ka qayb qaadanayeen ganacsatada magaaladaasi Wajaale oo ay qaarkood alaabta ka urursanayeen ayaa waxa intii hawlgalkaasi lagu guda jiray warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka Soomaaliland farasaabka gobolka Gabiley gudoomiyaha degmada Wajaale iyo sidoo kale mas'uuliyiinta nabadgelyada gobolkaasi Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa ilaahay baa mahadle waxaan halkan uga bogaadinayaa oo mahadnaq uga soo jeedinayaa dadweynaha reer Wajaale oo si aad iyo aad u qurux badan oo gobonimo ku jirto oo nabadgelyo ah uga qayb qaatay hawsha waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Wajaale mar labaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka degmada Wajaale iyo maamulka gobolka oo hormuudka ka yahay Ramaax iyadoo hawshaasi ay u socoto si nabadgelyo si wanaagsan oo dadweynuhu ka qayb qaadanayo alaabtooda ay ka gurteen ilaa haddana shaqadii si wanaagsan u socoto ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu khayr inoogu dhammeeyo waxaanan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa dadweynaha maanta waxaa si habsamee u socotaa hawshii bannaynta wadooyinka iyo bilicda magaalada taasoo shalay inoo bilaabatay maantana ay tahay maalintii labaad waxaan aad iyo aad u hambalyaynaya dadweynaha oo u dhaganugulaaday awaamirtii oo si wanaagsan u furfuraya una qaatay kana urursaday alaabtoodii iyo hantidii u dhex taallay hawshuna waxay u socotaa si fiican ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dhammaystirkeeduna inuu si wanaagsan noogu dhammaystirmo sidaad indhihiinaba ku aragteen dadweynuhu xalay ilaa maanta nin walba meeshiisii buu bannaynayey cagafyadii loogu talagalay inay wax banneeyaan wax hawl oo hayaan ma jirto iyo wax banneeyeen madala dadweynaha ayaa banneeyey way ka furteen bannayntii ay bannaynayeen cagafyadu taasina mahadnaq weyn baanu dadweynaha reer Wajaale uga soo jeedinaynaa waxa kaliya oo haray magaalada gudaheeda maaha wixii hareeraha ka xigay hareeraha waxa ka xiga waxa weeyaan wadooyinkii waqooyi ilaa koonfurta tali magaaladu ma lahayn waana wadooyinka ugu muhiimsan inay ka saaraan biyaha loogu talagalay booliis ahaan iyo qayb ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Wajaale oo runtii si degan oo wanaagsan oo sharaf badan ula shaqeeyay qolada farsamada iyo ciidanka booliiskuna maadaama ciidanka nabadgelyada yahay si degan meeshii hawl laga socodsiinayaba ciidanka booliisku de waxa weeyaan waajib role buu ku leeyahay waa nabadgelyadu ilaaliya oo mar kasta iyo mar aan shaqo jirinba ciidanka booliisku de arinta goobjoog buu ka ahaa shaqadiisa roolkiisana uu ka qaatay laba debdemis baa isku dhaafi karaya ujeedada aynu ka lahayn dadka iyo dawladdu way isla fahmeen magaalada inay wadooyinku dan yihiin shacabku way garteen ganacsatadu way garteen geesta kale ganacsatada iyo bulshada degmada Wajaale ayaa soo dhaweeyay qorshe magaaleedkani amba hawlgalkani lagu banaynayo wadooyinka magaaladaasi xidhmay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dawladda Soomaaliland ee sida qiimaha iyo qaayahana wadada noogu banaysay run ahaantii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan kaloon hambalyo u jeedinaa ciidamada geesiinta reer Soomaaliland qaybahooda kala duwan sida ay nabadgelyada u sugeen run ahaantii aad iyo aadna waan ugu ducaynaa iga farxad badan laba kulo aan helo xameela wadana والله إلهي دكتور نو بركاته هو ودوين كله نو دسه له نو هجاج هو مقالة نو بلارته هو مقالة كبلارنا هلو si kastaba ha ahaatee qorshe magaaleedkani amba hawlgalkani lagu banaynayo magaalada Wajaale ayaa wax badan ka tari doona dhibaatooyinka dhinaca dabka ka kaca magaaladaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay ku badanayay suuqyada magaaladaasi Sakariya Nuux Ibrahim Somali Cable degmada Wajaale